Chainlink mid ka mid ah mashaariicda ugu qiimaha badan suuqa cryptocurrency mid ka mid ah coinanka lagu hadalaynta badan yahay 2026 maxaa ka dhigaya coin jiri kara waqti dheer muxuu yahay mashruuca in badan aysan lahayn coinanka uu isagu leeyahay coin runtii mustaqbalkiisa aad iyo aad u fiican yahay coin 2027 meel fiican tagi kara barnaamijkeena fursadaha coinska waxaan ku tixjeexi doonaa maanta Chainlink ama link fursadaha ka furan caqabadaha haysta iyo sida loo faa'iideysan karo saaxiibayaal muuqaalka like saar YouTube-ka subscribe saar aan screen-ka isla tagno haddii aan isla tagno screen-ka coin-ka maanta inoo saaran waa Chainlink ama link waa ticker name-kiisa way ama symbol-kiisa haddii aan ka bilowno market cap and ranking market cap-ka waa lacagta ku jirta coin-ka ranking-kan waxa waaye heerka kala sarreynta oo kaga jira suuqa cryptocurrency haddii aan tagno coin market cap si aan u ogaano heerka uu ku jiro Chainlink waa kana waa lambarka 18aad lambarka 18aad aan gudaha u galno market cap-kiisa si aan u ogaano market cap-kiisa waxaan u jeednaa inuu yahay 5.24 billion middle cap ayaan u tixgelinaynaa marka market cap-kiisa waxaan leenahay waa middle cap haddii aan ku xijino utility and use case coin-kan shaqada uu qabanayo iyo waxa loo isticmaalayo sidoo kale coin-kan hype miya mise waa xal adiyan coin-kan waa xal waa coin project la waayo haddii aan fiirino utility-ga Chainlink waxaa ugu horeeya waxa la yiraahdo Oracle service blockchain-ka wuxuu u baahan yahay data output ah oo banaanka ka imaanaysa si uu xog sax ah u helo hadday haalaheed dhinacyada cimilada qiimayaasha coinanka sidoo kale NFT-yada waxyaabahaas oo dhan qiimayaashooda waxa price tracking wax siiya ama xog siiya ayuu u baahan yahay marka utility-ga ugu weyn ee Chainlink waa Oracle services-ka waaye qodobka saddexaad waa payment token caadiyan waxa waaye payment token markii uu leeyahay waxaa lagu bixiyaa adeegyada Oracle-ka sida maaragtay developerska oo ay ku bixiyaan link qodobka afaraad waa staking-ka markii laga hadlaayo waa inay dadku stake-gareeyaan link marka taas waxay sare u qaadaysaa amniga network-ga si guud sidoo kale haddii aan fiirino staking oo kale hadhow waxay ku sii helayaan rewards ay ku sii helayaan qodobka ugu dambeeya waa security marka laga hadlaayo Oracle nodeska caadiyan waxay xaqiijiyaan in xogta la keenayo ay sax tahay in kale taas ayaa security ahaan diiradda lagu saaraa haddii aan fiirino use case-ka Chainlink qodobka koowaad waa banking markii laga hadlaayo caadiyan mustaqbalka bangiyada waxay isticmaali karaan Oracle si ay blockchain-ka ugu soo xirmaan taas ayuu kala shaqeeyaa qodobka labaad waa tokenization markii laga hadlaayo waxay ku xiran tahay waxa loo yaqaano real world asset oo loo yaqaano hantida dhabta ah ayuu aad uga shaqeeyaa haddii haaleed dhinacyada guryaha dahabka iyo stock oo kale ayuu aad uga shaqeeyaa marka waxay u baahan yihiin xog saxan oo dhab ah Chainlink oo ku shaqeeya Oracle kaliya ayaan keeni karaa that's why tokenization-ka xooga u saaraya qodobka saddexaad waxaa loo yaqaanaa cross chain-ka caadiyan wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano interoperability protocol CCIP ayaa loo soo gaabshaa wuxuu u oggolaanayaa marka blockchains kala duwan inay si ammaan ah isku dhaafsadaan xog iyo assets kala duwan qodobka afraad waa gaming
gaming marka laga hadlayo waxaa loo isticmaalaa NFT games, metaverse oo kale ee aad lagu isticmaalaa iyo random number generation oo kale. waxaa kaloo loo isticmaalaa loot boxes. dhammaantood marka waxay isticmaali karaan Chainlink. qodobka u dambeeya waa AI integration. AI integrationka waxyaabaha uu ka caawiyo Chainlink waxaa ka mid ah marka laga hadlayo maadaama suuqa AI-ga oo aad u sii kordhayo xawli ku socdo mustaqbalka inay helaan xogo sugan oo ammaan ah oo isku halayn karaan. caadiyan marka Chainlink wuxuu door muhiim ah ka ciyaari karaa isku xirka AI iyo blockchain-iska. qodobka shanaad haddii aan fiirino waa tokenomics, sida coinka loo kala haysto iyo supply-giisa. waxaan ka fiiri doonaa dhinacyada maximum supply, total supply iyo circulating supply. aan tagno coin market cap haddaan fiirino waxaan u jeednaa maximum supply-ga Chainlink inuu yahay 1 billion inuu yahay. sidoo kale waxaan u jeednaa total supply-ga inuu yahay 1 billion oo asagana la soo saaro banaanka la keenay. circulating supply-giisa waxaan u jeednaa inuu yahay 727 milyan inuu yahay ayaan u jeednaa, oo wax ka yar 300 milyan ayaa maaragtay banaanka jirta. caadiyan marka waxaa waaye holderska meeshaan waa la qariyay. marka coinkan coin runtii waxaa waaye cimaamadiisa aan la haysan karin oo in badan maaragtay anigu aan ka mid ah dadkii investmentka u galay runtii ilaa 4x 5x waa xasuustaa maraan ka qaatay. marka waa runtii coin projectgiisu aad u xoogan yahay, jaanis fiicanna bixiya, xilligaana maraya meel jaanis ah. haddii aan fiirino coin history-ga ayaa nugu xiga. coin history-ga marka caadiyan waxaan ka fiiri doonaa xilligu soo galay, taariikhda ay ahayd, qiimaha kusoo galay, all time high-giisa, all time low-giisa, waxyaalahaas ayaan fiiri doonaa. waxaan u jeednaa inuu qiimo aad u yar runtii kusoo galay oo ah runtii 2 senti 24 senti. xilligaas waxay ahayd 2018 soo sheegay coin market cap-ka. marka dhaqaaqiisa ugu horeeyay wuxuu gaaray $36 ayuu gaaray. marka waan all time high-giisa sidoo hadda noo sheegayo 36 abadkiisba meesha u sarreyso gaaray waa uu leeyahay. kana wuxuu sheegaaba ilaa okay. marka meelaha hadda ugu hooseeyay oo la keenay waxay ahayd runtii $4, maantana $7 ayuu maraya. marka $4 markuu imaanaya haddaan fiirino waxaan u jeednaa inuu tagay ilaa iyo 16. marka ka waran ninkii $4 ka qaatay ilaa $6 uga degay 19 ilaa 20 markuu uga degay ka waran faa'iido intee leeg ayuu haysan karaa. taas waa in xisaabta gelisaa. marka lagu daatay coinka oo wuxuu yimid $10, mar kale ayuu ku laabtay $25. profit nooca ah ayuu faa'iidi karaa qofka ilaa iyo 25 la socday. mar kale coinka uu daatay waxaan u jeednaa inuu tagay qiimo dhan runtii aad buu u yara dhacay. markaas wuxuu ku dhowaa wuxuu tagay $10 ay kusoo laabtay mar kalena wuxuu tagay $23. haddana waa daashadii ugu dambeysay. marka haddii uu kusoo laabto zoonkan $5 ah ilaa iyo $4 ah runtii profit fiican ayuu maaragtay leeyahay qofkii haya sanad ilaa 2 sano. coin news-ka haddii aan fiirino partnership-iska ayaa ka fiirinaysaa coinkan, yani dadka collaboration-ka la sameynaya haddii listing lagu soo sameeyo coinkan maadaama uu yahay coin oo runtii waqti badan joogay. haddii Binance, Coinbase ama other exchanges haddii listing lagu sameeyo. sidoo kale muhiim waaye inaad la socotid updateska ama macluumaadka ka soo baxaya coinkan si aad ula socotid. qodobka 8aad waa community and hype. bulshada coinkan sidee ay u fircoon tahay, sideesa loo halayaa. waxaa kala socon kartaa qaybaha X, Telegram iyo Discord activity. haddii aan fiirino qodobka 9aad oo ah technical analysis-ka, aan tagno trading view-ga aan tagno. gudaha ayaan usoo galnay trading view-ga. Chainlink aan baarano. Chainlink haddii aan fiirino
chartigiisa waa kana waxaan u jeednaa inuu maraayo maanta 7.21 senti inuu maraayo ayaan u jeednaa. marka saaxiib yaal coinkan horta si guud aad buu u dhacsan yahay oo meel hoose ayuu joogaa qiimo ahaan maantay meesha uu maraayo iyo meesha u dambeysay laga soo daadiyay hadaa fiirisid qofka xitaa intaas haya profit fiican ayuu qaadan karaa. haddii aan fiirino saaxiib yaal technicalka si guud coinkan horta zoonanka u macquulsan uu leeyahay ama u xooga badan waa areadan sababtoo ah dhowr mar baa laga soo celshay. qaybtan waxaa waaye waxaan u qaadan karnaa bull trap ayaan u qaadan karnaa bengur. okay sidoo kale haddii aan fiirino dhinaca maaragtay zoneska hoose supportka ugu xoogan ee aan aragnay muxuu ahaa zoonkan ayuu ahaa isagana runtii maaragtay meesha xataa markaasi noqota conjunction area aan dhihi karno. haddana waxaan u jeednaa in uu samaystay another support oo ah meeshaan runtii dhowr mar lagu soo celshay mar baa la keena uu ka laabtay mar kale hadda marka saddexaad ayuu socdaa. haddii markaan u ixtiraamo runtii dhaaq weyn ayaan ka filaynaa oo ugu yaraan inuu ku laabto $8 ayaan filaynaa ilaa iyo maaragtay $10 ku laabto. marka saaxiib yaal haddii aan fiirino dhinaca RSI waxaan u jeednaa inuu yahay oversold oo ah ayadana jaanis kale. marka overbought qofkii uga baxa lacag fiican ayuu ka qaadan karaa. haddii aan fiirino dhinaca risk analysiska waxaa iska fiirisaa whale manipulation. sidoo kale waxaa iska fiirisaa regulation riskiga psychological riskiga waa muhim. dadka hadda coinka ku jiro kale uu la daatay coinka haya DCA ku sameeya yaan niyad jabin yaan kugu dhicin panic selling wax yiraahdo kugu dhicin. sidoo kale security riskiga arrimaha ammaanka ayadana waa inaad diiradda saartaa oo iska fiirisaa. qodobka 11aad muhiim ah raacin bumbuuninta. tusaale aniga hadda coinka ka hadlay warbixin guud baan ka sameeyay fursadaha maartay la heli karaan tilmaamay talo maalgashi ma ahan marka adigana baaritaan ku gaar ah sameey. sidoo kale waa inaad sameysaa cilmi baaris ku gaar ah do your own research ayadana waa muhiim. sidoo kale haddii ay haystid coinam kala duwan waa inaad portfolio-da kala duwdaa oo ku sameysaa diversification waxa loo yaqaano. aad mahadsan tahay haddii aad soo gaartay halkan qof adag ayaa tahay muuqaalka like saar, YouTube subscribe saar, saaxiibada la wadaag. waa inoo kulanti dambe iyo muuqaalo kale oo xiiso leh.